2012 waxa ay Soomaaliya u ahayd xilli isbedel taariikhi ah bilow safar soo socday 4 sano waa markii uu xilka madaxweynenimo la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Xasan inta aanu xilka ku guuleysan waxa uu soo galay loolan adag oo ugu dambeyn uu ku hantay guusha. sababaha uu ku guuleystay waxa loo tiriyaa in ay ahayd qorshihiisii hoggaanka kaas oo ka koobnaa 6 tiir oo uu ku sareeyay baahiyihii uu dalku qabay. dawladdu waxa ay bilowday in ay waajahdo xal u helista caqabadaha hor yaallay. tan ugu muhiimsan ayaa ahayd ammaanka. intii lagu guda jiray isla 2012 dawladda uu hogaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh oo kaashanaysa bulshada iyo saaxiibada caalamiga ah waxa ay dhaqaajisay duulaanno xooggan kuwa oo shabaab looga xureeyay dhulkii ay xukumayeen marka laga reebo deegaano kooban. waa garan kartaan meesha ciidamada Soomaaliyeed kala joogan iyo ummadda Soomaaliyeed kala joogan hadda ayagoo muxuu ahaa nabad ku nool inkastoo dadkaas nabadiidka ay dhibaatadooda iyo waxooda muxuu ahaa ay leeyihiin dhalinyarada la khalday ay leeyihiin ay dadka shacabka ku dhibaateynayaan laakiin ciidamada Soomaaliyeed waxay gaarsiiyeen ayagoo kaashanaya ciidamada kaleeto Amisom waxay gaarsiiyeen muxuu ahaayo meel aan markii hore looga riyoonayn in dhaqso ay u gaari doonto ummadda Soomaaliyeed xagga amniga iyo xagga horumarkaba. in ka badan 30 degmo ay haysteen 30 degmo Soomaaliya kamid ay haysteen maantana waxa ay haystaan ay ku hareen kama badna 5 degmo. Soomaaliya marka laga hadlayo waa 90 dhowr degmo marka Soomaaliya guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya marka awood ciidan ahaan maanta waxay ku soo hareen wax aan ka badnayn 5 degmo. ka saarista shabaab deegaanada ay xukumayeen waxa ay dawladdu ku dhinac waday howlgallo lagula dagaalamayo amni darrada dhulka xorta ah oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho. madaxweynaha ayaa amray in la burburiyo in ka badan 50 jidgooyo oo dhex taalla caasimadda. tallaabadaas oo markiiba ay u riyaaqeen dadweynaha Soomaaliyeed. howlwadaag isbaaro isgooska bakaara isbaaro afartii jirdiin isbaaro sanco isbaaro oo maleeshi beelood nin walba jufo u tiin haddana maanta kula hadlayo ilaahay wuxuu nagu nimciyay hal boonaan goosna hal boon ama xabrweynaha laga gooy ama madiinaha laga soo gooy ama kaaraha laga soo gooy ama suuq xoolaha laga gooy halkaas boonaa magaalada ku mara marka firqa la soo koobi karo ma aan ma sha Allah way ilaahay noo nimciyay di wiilkaagu ay jid isbaar u taano qof aaminayso ku qancaysa ma jirto wallahi isbaaradan raali kama asarkaalka laakiin de askartan dibka badan aha waxaan sameeyay ma lagu qancay shalay hadii dadka saas loo sheegi jiray maanta waa laga yimiday isbaara jidka askari haduu dhigto sarkaalow aday ku taala. magaaladan madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay hal la qaado in la qaado markuu ku dhawaaqay 2000 iyo horaantii 2013 waxaa tiilay 60 isbaaro ka badanaa tiilay maanta hal isbaaro magaalada xamar meel checkpoint isbaara oo Malaysia heebtooda aan la aqoon ay u taalo ma jiraan bal waxaad arkaysaa dawladdii hoose iyo turbatariyadii iyo canshuurihii oo la qaadayo waxaad arki kartaan isbedel ka dhacay. si guulaha laga gaaray ammaanka ay u noqdaan kuwa waara dawladdu waxa ay tayeysay korna u qaaday tirada ciidamada qalabka sida iyada oo la unkay cutubyo gaar ah oo u tababaran ka jawaabista weerarada argagixisada iyo beegsiga madaxda shabaab. tallaabo kale oo loo qaaday dhanka amniga ayaa ahayd in madaxweyne Xasan Sheekh uu siyaasad ka dhigtay in kooxda shabaab loo fidiyo cafis inta ogol inta diidana lagu ciqaabo dambiyada ay ku jiraan taas oo markiiba keentay in horjoogayaal waaweyn iyo maleeshiyaad fara badan ay ka soo baxaan shabaab iyaga oo ka faa'iideysanaya cafiska madaxweynaha. waxaana laga xusi karaa Sheekh Xasan Daahir Aways madaxii sirdoonka shabaab oo loo yaqaanay Zakariya Maxamed Saciid Atam oo xukumayay aaga Galgala iyada oo sidoo kale ay soo xaroodeen boqolaal maleeshiyaad ah halka ay dawladdu tallaabo ka qaaday horjoogayaashii ka madax adeegay cafiska madaxweynaha kuwaas oo uu ka mid ahaa madaxii kooxda shabaab Axmed Cabdi Godane hogaamiyihii gobolada Jubbooyinka ee shabaab oo lagu magacaabi jiray Dulyadayn iyo kuwa kale. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya saan ku sheegay tayeyntiisii kamida in ay ka howlgalaan meelo badan oo dadkaas nabadiidka ah ay muxuu ahaayeeto ay dadka ku dhibaateynayeen ama shacabka ku dhibaateynayeen inay howlgal ka sameeyaan
dad badan oo ayaa ka midana oo dadka nabadiidka ka mida waxay bedeleen fikradoodii way bedeleen oo waxay go'aansadeen inay shacabka Soomaaliyeed ama dadkooda iyo ummadooda ka mid noqdaan